Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan walaalaha Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan. Waa anigoo ah Macalin Shariif. Videogan waxaynu ka eegaynaa meelaha kala gedisan ee waalidka haysta carruurta autistiga uu u raadsan karo caawinaad. Marka hore, subscribe saar channelkan lana wadaag walaalaha kale si ay iyaguna uga faa'iidaystaan. Commentina saar oo sax wixii qaldan. Dhammaan waalidiinta haysta carruurta la nool xaaladda autism-ka waxaa ku yimaada culays iyo walwal fara badan. Waxay juhdi iyo waqti badan ku bixiyaan sidii ay ku caawin lahaayeen canugooda autistiga ah, taas oo ku keenta waalidka daal iyo walaac fara badan. Sidaa darteed, waalidkan wuxuu waqti u waayaa reerka intiisa kale, taasoo keeni karta in reerka intiisa kale xiriirkooda uu xumaado. Xagee waalidku caawinaad u raadsan karaa? Reerka iyo asxaabta. U sheeg reerkaaga iyo asxaabtaada xaalka uu ku sugan yahay canugaaga. Weydiisana inay kaa caawiyaan waxyaabaha daruuriga ah, sida inay dukaanka wax kaaga soo qabtaan, marmarna canuga ay kuu dheelsiiyaan, amaba ay kula sheekaystaan si uu walwalka kaaga yaraado. Waxaad kaloo weydiisan kartaa waalidiinta haysta carruurta la nool xaaladdan waana iyo wax sheeg, taasoo kaa caawinaysa la tacaalka canugaaga. Dhagayso sheekooyinka waalidiinta kale, daawo fiidiyowyada ka hadlaya xaaladda autism-ka, akhrisana buugaagta ka hadlaysa xaaladdan si aad uga faa'iidaysato. Waxaad la hadli kartaa The National Autistic Society oo caawisa waalidiinta haysta carruurta la nool xaaladda autistiga, amaba The Local Support Group oo ah gruubka markii horeba ka helay canugaaga xaaladda autism-ka. Inta badan qolyahan waxay kaa caawinayaan warbixinada ku saabsan halka caawinaadda loo raadsado ereyada aad ku nooshahay iyo waxyaabaha uu xaqa u leeyahay canugaaga. Waxaad kaloo geli kartaa website-ka The National Autistic Society Services Directory ama Autism Support Groups. Labadan website waxaad ka helaysaa dhammaan cinwaanada hay-adaha kala gedisan ee jira ee caawiya waalidiinta haysta carruurta la nool xaaladda autism-ka. Baraha bulshada waxaad ka helaysaa waalidiin badan oo kula wadaagaya xaalka noloshooda iyo tan carruurtooda. Qasab maaha inaad la hadasho adiga, laakiin waxaad iska dhagaysan kartaa ama aad akhrisan kartaa sheekooyinkooda iyo sida ay ula tacaalayaan carruurtooda. Faallooyinka aad ku arkayso baraha bulshada waa waayo aragnimo shakhsiyadeed. Sidaa darteed, ha u qaadan talo ku caawinaysa adiga ama ilmahaaga. Iskoolka canugaaga u dhigto. Iskoolku wuu ku caawinayaa ee la hadal macallimiinta canugaaga. Sidoo kale, la hadal shaqadaada oo u sheeg inaad haysato canug autistic ah si ay kuu caawiyaan. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inay kuu beddelaan waqtiga aad shaqada soo gasho iyo waqtiga aad ka baxdo, si aad u hesho waqti aad cunugaaga ka soo wadato iskoolka iyo waqti aad ku geysatoba. Local council-ka baarowga aad ku nooshahay waxaad ka heli kartaa caawinaad dhaqaalo. Walow caawinaadan ay ku kala gedisan yihiin kansalada, haddana waxay ugu yeeraan local offer. Weydiiso kansalka inuu kuu sameeyo carers assessment oo loogu talagalay in lagu eego caawinaadda aad xaq u leedahay waalid ahaan si aad u daryeesho canugaaga. Marka la sameynayo carers assessment, waa lagula sheekaysanayaa oo waxaa lagu weydiinayaa dhibaatooyinka aad qabto oo idil iyo sida ay u saameysay nolosha canugaaga, taada iyo tan reerkaagaba. Waxay qaadanaysaa ugu yaraan 1 saac, waana la qorayaa wax kastoo aad sheegto. Sidaa darteed, u diyaar garow oo qoro waxyaabaha aad ku dhibaatootaan adiga iyo canugaagaba si aadan u ilaawin hadhow marka lagu wareysanayo. Ujeedadu waa in la eego waxyaabaha laga caawin karo. Waxaa laga yaabaa inay ku yiraahdaan qof ayaa kuu imaanaya oo kaa haynaya canuga 2 saacadood maalin kasta si aad u nasato. Waxaa kaloo laga yaabaa inay ku siiyaan kaarka jimka lagu aado iyo casharo jimicsi si uu walwalka kaaga yaraado. Sidoo kale waxaa laga yaabaa inay kuu diraan training ama ay kugu xiraan local support group si aad u hesho dad aad la sheekaysato. La hadal GP-ga iyo kooxda ka heshay canugaaga xaaladda autism-ka. Waxay kugu xirayaan takhasuslayaal qaas ah. OT-ga waa qofka ka caawinaya canugaaga inuu ka gudbo caqabadaha ku hor istaagaya
inuu qabsado howl maalmeedkiisa daruuriga ah sida inuu isdaryeelo si uu ugu noolaado nolol madax bannaan oo aan la daba taagnayn. Speech and language therapist waa qofka ka caawinaya canugaaga inuu ka gudbo caqabadaha ka hor istaagsan hadalka, wax laqitaanka ama dhunshinta iyo cuntaynta. Waxaa kaloo laga yaabaa inuu kuu sheego waxyaabaha aad samayn lahayd iyo xeeladaha aad adeegsan lahayd marka aad guriga joogto. Mental health specialist waxay kaa caawinayaan arrimaha ay ka mid yihiin walwalka iyo murugada iyo dhibaatooyinka cuntada. Samee koorsada loo yaqaano Early Bird oo ay bixiso The National Autistic Society. Koorsadan waxaa loogu talagalay in lagu tababaro waalidiinta haysta carruurta autistic-ga ah ee da'doodu u dhaxayso 4 sano ilaa 9 sannadood. Koorsadan waxay ka caawinaysaa waalidiinta inay aasaasaan dhaqan wanaagsan oo ay ku caawinayaan canugooda inta uu wali yar yahay. Waalidka wuxuu la kulmayaa xirfadlayaasha sida joogtada ah ula shaqeynaya canugooda, taas oo fursad u siinaysa inay kala hadlaan wax kasta oo ku saabsan canugooda iyo xaalkiisa. Ugu dambeyn, ha u dareemin dambi inaad waqti siiso naftaada markii aad awoodid. Xitaa haddii kaligaa aad lugayso, waxay kaa caawinaysaa nasiinada jireed iyo midda maskaxeed. Haddii aad haysato carruur kale, waxyaabo badan ayay kaa caawin karaan. Waqti la qaado oo kala hadal waxyaabaha dhacaya, oo weydii haddii ay walwalsan yihiin ama ay su'aalo qabaan. Eeg hay'adda SIPS oo kaa caawinaysa warbixinada ku saabsan carruurta autistic-ga ah iyo walaalahood. Mararka qaar ha ka cabsan inaad u wado kulamada aad la qaadanayso xirfadlayaasha kaa caawinaya canugaaga. Taasi waxay suuro gelinaysaa inay fahmaan xaaladaada iyo tan walaalkoodba. Fadlan share videogan lana wadaag walaalaha kale si ay iyaguna uga faa'iidaystaan. Comment-na saar oo sax wixii qaldan. Waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.